والدك معلمين الكلام لقى صوت قال فرمان أدلة إنجنيرية لقى صوت الأول أدلة حتى تعليم الدراسي باتمان إلا فصلت الجمل كان الجمل كان بني السلام يا رماني وأنا سلوين يا وحنا كم علينا يا وقت يا رسول المعنى نرسل بالشيء لدينا لدينا معنى إن شاء الله تعالى أورين مع ذلك يسوون أنا سمعنا جنرال الرسالة أساسا وأخذون تجديد الجنيه حتى وده بقى الشكل اللي يبقى الإسلام إن شاء الله تعالى كيف يكون ندرس تاسوها بيت وحكاه كل فاقان وقالت في هرمان في وحياة وصول جدا سمعني هذا الصوت أبنى جارها سمعنا هذا جوجل اللي يقرأ إن أول مريض شهادوي أول مريض يومات معنا أبدا ويسا أما أبدا أسوسيشن ككلية إنجنيرية سيدو كلامنا أول مريض أبدا أقول كهارين سيدو قصنا هاي طلبات إنجنير فصوب ورمي ورمي في السنة كاملة. marka waxaan jiri doonaa insha Allah ta'ala shahaadooyin aad u fara badan oo soo jeedaan kuwaas hadda soo sheegnay iyo kuwa kale iyo macallimiinta haddii wax yar markaan ka taabto hay'adaha farsamada handasada iyo teknolojiyadda jaamacadda Banaadir iyo sanadkii ka horreeyay soo galaw kuliyaddu waxay ka qayb gashay sanadkii hadda naga tegay 2007 bandhiga haween ruuxaantii kuliyadda ay ku ahayd keligeed jaamacadda waxay jiraan dadkooda shaqadan أنا بدأت أشتغل في جامعة الشيخ جامعة السنوات gaar ahaan iyadu waxay ka qaybgashay bandhigaas oo kusoo bandhigtay noocyada kala duwan ee carrada laabka aan haysano iyo awoodda uu leeyahay inuu lagu tijaabiyo carrooyinkaas marka guul weyn bay kuliyadda u ahayd oo hogaaminayay cabdisaaq ali xaseen iyo tiimkiisa kale ee ku dhibaatnaa mar walba sanadkaas waa ahayd sanadkan cusub horaantiisii waxaan qabanqaabo galay kuliyadda haddaan ahayn in aan isku dayno markaa waxyaabo jiraacaad ah oo hore aan waddanka oga dhicin oo ahayd markaas inaan qabanno dodaadka injineerka oo weli waddankeena taariikh ahaan ka dhicin dadaal badan kadib iyo inaan loo kala harin ardayda kuliyadda iyo maamulka iyo macallimiinta oo isla wada jira ilaahay mahantiis si fiican noogu qabsoomay barnaamijkaasna halkaas isaguna noogu qabsoomay oo ilaahay mahantiis ilaahay ugu mahadsanayna waxaa kaloo jiray intaan ka bixin marka barnaamijkaas waxaa lagu soo bandhigay ilaa 20 mashruuc oo isugu jira electrical iyo civil waxaa kaloo ardayda u qabsoomay inay soo daawacaan magasiinkan aragtaan intaas markaan kasoo tagno waxaa jiray asagana horumarka hadda suuliyiinta injineer Abdullahi Calaay Abdullahi Calaay oo asagana safar barasho isugu jira inuu soo galo agab isugu jira laab iyo bugaag originaala oo ku tegay waddanka Hindiya oo loo bilood kusoo tababaranayay ayadana guul weyn bay ahayd waxaan sugaynaa maalmaha soo socda in qalabka inoo soo dego runaaantii qalab aad u fara badan oo container dhan oo isugu jira bugaag originaal ah iyo laabo kala duwan taasna ayadana waxay noo ahayd injineerka taagalaal naga fahayn doona fikradihii la isku dardaray iyo iskaashigii iyo wadaadkii intaas kadib waxaa ayadana jirta oo sidii la rabay loo qabsoomay ayagana seminaaradii sanadlaha ah oo kuliyaddu ay noo qabatay sanadkii saddexaad ayagana sidoo kale si oo guul ay noogu dhamaaday marka inta haddaan uga soo gudno boontiyada ugu waaweynaa oo sanadkan noo qabsoomay waxaan ku haminaynaa hadda kuliyad ahaan in aan sii joogtayno siina horumarino howlahaas ayaga ah oo bilowday oo halkaas iyo meel kasi fiican ay sii gaaraan sida hadda bilowdeen waxaa kaloo jira ayadana kuliyaddu ayaamahan waxay ku taamaysay oo aan hawl weyn dardar gelinay in aan furno campaign consultant oo aqoontii akaademiga ahayd aan usoo bixino banaanka bimacnaa hadda laba baan leenahay yes
ardayda noo qaadato laakiin inaan uga faa'iideyno suuqii inaan la imaano oo tartanada aan galno oo noqono yani ardaydeena meel noo qaadato kuwa maaragtaantiga iyo kuwa kalaba qaabkooda ka shaqeeyaan yani inaan dadka wax la qaybsano caalamkan inaan wax la qaybsano regional yani inaan hadaf ahaan yani inaan noqono already waan howlahaasaan bilownay website-kii iyo waxaan ku jirnaa maaragtay hawlihiisii joogahayn inahaas ay ugu muhiimsan aad ayaan salaamaya dhammaantiin soo dhawaada qabalada xafladan qiimaha badan inaan qabsano loo soo geliyay marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shaqada jaamacadda madaxda jaamacadda muxuu ahaa macallimiinta marti sharaf dhammaan iyo ardayda inta kasoo xafladan oo ay maaragtay aan kusoo weydiinayna dhiinkeena qaaliga ah cabdisaaq cali caseer run ahaantii waxaa waaye jaamacadda intaan sanadkan oo sanadjeedka ku dursan 17 18 waxa waaye anigu ku hadlaa magaca ardayda engineering amaan aad iyo aad weynaan ujeedinaya sababtoo ah waxyaabo badan oo kuliyadda oo horumar ay ku faasitaa jira haddii ahaan leedanka oo engineer weyn runaantii taariikhda engineer weyn haddaan ka bixiyo waxaa waaye inta kuyaza waa Banaadir University Engineering Student Association iyadoo ardayda engineeringa jaamacadda Banaadir waxyaabaha ugu muuqda waxaa ka mid ahaa oo qalbiga engineer weyn runaantii engineer waxaa waaye engineerka على عسير في آل أنت لسه بديك برنامج في رقم من سنة هنباليو هو يتطلب مع التجربة برن أو إنجنيرين مع التعبيسة أو واحد كأي سنة أو حتى الصيف مع الإنجنير وهو من يبتها محاسس حضر أو هذا أنت إنجنيرين وين الفكرة إنجنيرين من السوق يعني سفل كمان من السوق يعني صار markii baadiyaha joogo waxa waaye waxa dugaha dhistaa maaragtay oo afar Soomaaliya waa gabdhaha Soomaaliyeed waxa inta badan dugaha dhis marka waa si loo fiirino oo maaragtay reference ahaan waa ayaga waa dadkii ictiraaf waa dugaha ay dhisteen iyo dadka loo qaaday gabdhaha marka waxaan rajaynayaa gabdhaha hadda kadib inay maaragtay u sii helaan inay bartaan kulliyadda engineering arday kalaas jirta aad u fara badnaa bandhigyo badan sameeyey arday qaar jirtay xitaa oo maaragtay aniga gudoomiye ahaan ugu qabsaday tahay barnaamijka maxaad mar hore ugu soo bandhigi weydeen oo waa wax badan soo bandhigi lahayn inaan maaragtay halkaan qaadan engineer weyn waxyaabahaas waa in maaragtay gaabkaas yar ku imaado waxaa ka mid ah ardayda qaar way jiifeen oo ma islahayn waxaa lagu guuleysan doonaa bandhigan la sameynayo oo lagu guuleysan doonaa waxaan soo saari Aseer mar walba oo maaragtay inuu waxaan ku wada xiriiri jirnay email mar walba wax mara mar walba uu nala socon jiray xitaa 5 bilood ka harsan tahay waxyaaba boqolkiiba 30 hadaan aan la qaban oo maaragtay aan diyaarsaneen in maaragtay dadweynaha kiciyo oo yeer shitaas bari aan ku qabay aad u mahadsan inay waa amaan halkan ku soo kori karo inay insha Allah Abdullahi waxaan jirta engineerka adoo xafladda dambe qaybta dambe aan inaan ku dulsin awaan ugu talagalnay aan bilaasa awaan aan leenahay oo maadaama bilaasada sanadkii inta jaamacadda engineering aan marka la fiirinayo sanadkaas ugu horreeyay maaragtay arday engineering oo heelan oo maaragtay oo macallimiintooda shaqeynayso oo rabo inay wax bandhigaan sameeyaan maadaama anagana waxaan aragnay maadaama macallimiinta qaar macallimiintooda fiican macallimiinta qaar waxaa jiro motivation aad billah marka engineerka section ahaan waxaa uu kamid yahay engineer maaragtay oo motivation iyo ahaa oo mar walba dhiirigelinta maaragtay aan qaadan jiray marka engineer absaad engineer Musa waxaa jirta awaas aan ku kalmay insha Allah xafladan aadada dambe inaan ku doonsiinaa wadaadina macallimiin kalena ay oo mahsan yihiin waxa waaye waqtiga ugu yaraaday xafladiina waa la soo marka saas darteeda waa intaan ka gaari karnaa sameynay marka waa mar labaad mar saddexaad waa mahadsantihiin
هذا صدق ركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. والإسلام تاجي وإحنا يمضي يا سنين وحال اللي يريدن أن بديهل كي هو بعد وأولا يكون اللي وخطر يكون بودعان والله بعد أيام يدوك السلام يا سلامة الإسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كذب waxaan si gooniya u salaamayaa madaxda meesha fadhida oo gudeedka ama dhiinka la socodsiinaya oo aan aqoon hore u lahayn casiir oo ugu sarreeyo iyo guddoomiyaha iyo kulligiin waxaan leeyahay waa idin salaamayaa waa idin hambaryanayaa inta safarkooda si nabadgelyada allaha uga dhigo inta joogtana wixii aad soo qabateen wax laga istafiido allaha ka dhigo idinkuna waa ku mahadsantihin intaas marka laga gudbo qof walba marka wuxuu yaqaan uu ka sheekeeya kuma soo tarbiya qurba inaan usoo iskaagamiga waa lay qabtay iibga wiilasha waxay dhahay soo laakiin nin walba wuxuu yaqaan uu ka sheekeeya anigu waxaan ahay askari waxaan ahay askartii gobolka Soomaaliyeed ee hore waxaan galay dagaalkii sabab waxaa igu yaala dhaawacyo tiro badan anigoo yar oo la ii diiday in saf la iga qoro waxaa la qorayay markii xisaab cali xisbi ninkii yaqaana raggeena mutacalimiinta 76 muqdishaan ka raacay gobolada dhexaa la iga qoray nin ay geeyo yiri ninkan waa nin gulwada ah dad dhaadheer oo qurux badan la qoray oo tugsan aniguna sarwaal qabay iyo gaba aan isku dheeraynayo waa la iido la qoray آخر قرار بقري لكن الحمد لله دبوا أنت مجرم ما شاء الله مركز القيبية قيس الاحتمال قياس التطبيقات بالسر اللي بيسمونها كل التطبيقات الشنات الحضور أيام قيس تجي قد كجمعات الكوب حي ولا قرينا هي كمدها جودي أيام قبل لوني أحمد ياسو سركال كينو وتي أيام ناس مولد أنتي وان أولناي جودي markaan qabanayna maxaabiistan soo qaadnay waxaan keenay muqdisho waxaana lagu soo dhaweeyey kila Soomaal inagoo 45 askari oo madaxda wadato oo wadna 2 kun iyo xoogaa maxaabiis meeshii aan ku noqonay gurigeena Itoobiya ma tegin dagaalkii koor niyadna waan ahaa santirna waa waxaan ka baxnay goday dhanaane hadaawe fiiq sagad baabiyaan ku soo dhaawacnay arag banaankeeda hargeysa ligay oo dhaawaca saddex dhaawacna ugu taallay gacanta iyo lugtaan iyo dhabarka waxaa la ii waayay isbitaal la seexiyo iskuuliga first July oo la yiraahdo dugsi sare ayaa ardayna la kaga saaray markaasna la seexiyay inuu dhaawac wadanka waxa uu qiimeeyay waxa yaqaan ninkii maamulka dambeyn soo gaaray ka dambeeyay aniga iga dhimatay waan ka maqnay wadanka waxaan leeyahay anoo ku dheereeyay inuu ka raali noqonaysay mahmaha Soomaaliyeed ay jirtay oo buuga discipliin oo askarta ka sheekeynay anoo hadda qoraalka ku sheegay oo waxay badan ku sheegay fiirida xoogga dalka Soomaaliyeed waa nin iyo ikhtiyaarkeeda bariga hore aan dabagtooda qasab ma jiro ninkii ku soo biira waa inuu si ka fakeeno danihiisa gaar ahaaneed wax walbana waa inuu ka hormariyaa danta dalka waxa kale oo leeyahay askariga dididka ka baxa xilliga nabadda wuxuu baajiyaa dhiigii ka bixilaa xilliga dagaalka raggeena yaryarka oo wadanka ku soo kacay waxaan idin sheegay aafta ma dhex taala saad dakhil ahaydeen inaad ka shaqeydaan wadankana waa u ducaynaya idinkana waa idin salaamayaa
waxa la idinkaga tegay oo la idinku shubay waddanka wax ugu qabta si cadaaladana wax ugu qabta warar badan aan geli lahay laakiin ma rabo inaan dheeraan dhowr eray ayaan ka tiriyey markaan arkay dad oo xataa dowladdanadii toosneed oo hore dad oo kudan lagu dalacsiinayo annagoo safka ku jirna ku dar isagana ku dar ogaakaas maar waxaan idhi ninkii jaale iyo jaal ayaa jiirka ka codaysta ninkii jamaca diidoo xumaha joogto ku ahaada ninkii jecel inuu noo jiciyo cadowga jaalkeena jidkii hore la soo maray ninkii dugo jaleecay jaahil buu ka yahay heer aan joogna maantadan sida looga jecel baxay naxwuu cadowgu jeeraashay murtideena injeeda loo dhuntaa jaanis loo helay jaleecada gumaysiga indhaan nala ku jeedaa jarka noo hilaaciyo nimcadan jalo bukeynayno juuqaha caleenta ee shacbigu jiro ku maarayo jidka toosan kii diidan ee weliba sii jeeda joog lagama karo ruux hadduu meelu jeedayahay jalla malahan aakhira ninkii xuma jidaystaay jahanamana waa lagu hubaa jaad kastuu yahay soomaali jeesh baa u kaxa jaahad iyo xoog leh waa jiir walaala dadka jiifka ku ogeydin jaajuuskiiyo naga idaajeer nin barsanayay janamay kasoo fulay murtida lagu jalbeertahay jirid adag intaa lagugu xirin amaan jeedka lagu goyn war hooy jaajuusoo nabada jeedaan macallimiinta ugu sareeyeen oo baxaya hadda safar salaam allah ku yeelo waan ku soo dhaweynayaa aad iyo mahadsantihiin dhammaan idinkuna waa aad baad u sharfantihiin sababtoo ah takharrij ma noqdo nimaan samrin anigu cilmi ma lihi laakiin waxaan ka dadaalay inaan ilmihii anigoo kale noqo darwalaan ahayn bas baabuurtaa waxna waa sameeya waan alifaa laakiin waxaan ku dadaalay inaan ciyaalkaygu meelo badan geeyey waxaan geeyey waddanka waa kuwana dagaalo markay dhaceen aan dibadahaasan ku maqnay waxaan ku mariyey Djibouti waxaan geeyey Yaman waxay kusoo baratay Samiro Yaman 2 sano kusoo dhiganaysa waxaa kula jiray Naciimana intay ku dhamayday wadaadii ayada ka weyneed oo ka baxday ayaduna Cabdifitaax oo ka wada weynaad waxaan u diray Malaysia waxuu ka baxay maxad waxaan u diray diyaaradan baranaya Thailand diyaan u diray 7 bilood markay ka dhiman tahay ayuu ku cayaaray jaamacadiisii isagoo bidun shahaada oo pilot 4 nooc bartay ayuu kulligii joogay waxaa ugu yar afartooda afar waalibaadooda waa tiro badan ayaanu waa tiro badan waxaa ugu yar nabiga muxiidiin oo hadda ku jira jaamacadda ku jira oo 18 sano jira 18 waan idin salaamayaa idinma kala aqaano dhammaan waa idin ambaayanayaa كل جوا سلام كل جوا سلام أرجع اليوم مع السنة هاي إن شاء الله. أنت بما ربنا تسجلنا ولا وكيل ما قلنا قلت فلان تستع. بسم الله على الجول نادر يجوع نقطة النقطة الله يسوق كلام. إذا ضربت على الأرض كلام سمعت وقال لنا وعنا هنا. عدد نادر يا بود كلام طبعا أنا بود وها حدد مكان لكن هو يسميه ولا جاي هنا كذا شفتي. سيدا سيا رفيق ما قلنا بتاعي. بسم الله. وأنفعل كتير ذي أود ذي ما شاء الله عليه ما شاء الله وهكذا سلامتي كتير السنة كله كتير وأنا وأنفرس على كل فيكتوريا وأنفرس جد أو هذه شراء حتى وأنفرس أنا لكن هذا واحد ريو نجات لكن ما أقبل أنا صاحبي أنا بسمي هاي فقط الاثنين أنا وقت المسجد دول ما فور رسول لا هذا حرام على بعد لما تقول فوتي تسوى زلمة تدعي هذه
soo gaarin saas oo aragtay laakiin gobolada saddex arday oo imtixaan ka qaadan jirta oo engineer ay markii dambe halkaan soo gaartay marka waa ilaahay mahad siidaa marka injineer cabdisaaq ku mahadsan iyo dadaalkiisa injineer cabdisaaq waa nin anaga leeyahay laakiin liidarka waxaa keenay siladiisa injineer cabdisaaq waa dhaqaaqay waxaana baray injineer cabdisaaq oo noo keenay asigii soo ambaleenaya qofka liidarka ah oo ku dara kara marka waa maasan yahay ragtan waa maasan yahay jirar waa maasan yahay waa maasan yahay waa idin hambalyeeya anaga waxoogeeda sometimes kasta wax ka jiro marka waxaan rajaynayaa fursad oo soo baxday fursadaas waxaan rajaynayaa inuu dib ugu soo laaban doono oo banaadin family oo garanaysaa dib ugu soo laaban doono kuliyadda hadda shaqada friend السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ضيف مشارك شيء دنيا جامعة مولانا عبد لما إن عسير غير إنجنير وهي لكن ساعات أنا جو دكتور وهي. ما نشوف كان إنجنير because عاوز شغلي سوق علي جامعة سويس عطار أنا جامعة صعبة وأنا كنت بروح كبير أنا سوي سي دكتور. waxaan jecelnahay inaan magaca aan ka bedelna aan Dr. Absaaq aad oo maasantiin maantii loo xaqo salaaman inaan tahay halkan joogo waxaan ku salaaman in Abdulrahim oo ka hadlay halkan joogo injineer halkan fadhiyaan aad oo maasantiin iyo ardayda oo aad qiimaha leh oo qadarinta leh oo halkan soo gashay in marsan karaatan maantay haddaan ka hadlo waxyar kuliyadda injineering jaamacadda Banaadir aniga hadafkeedu waxay tahay inaan isku dhiibino waxaan tusaalahaan dad soo qaataan kasoo bilaabo markaan imaan jaamacadda 2004 dhammaadkii jinacseerka waxaa waaye xilligaas waxaan ahayn dad oo kolliig ah oo shaqeynayo oo aad isku yaqaano oo hataa waxyaabo badan aan wadaagi jirnay hadda mada commentiga inaan sheego marka wax badan aan murugo badan oo soo marnay hadafkeenu wuxuu ahaa inaan shaqadaan aan socodsiino because waxaan waa ammaano amaanada waxay ku fiican tahay sida loogu talagalay in la guto amaanada wax kale ma ahan waa inuu ilaaliyaa waqtigeeda waa inuu ilaaliyaa mataqaanaa balantii lagula galay meesha aad joogto waa inuu ilaaliyaa qofka haddii subaxda ari raac waa inuu xilliga loogu talagalay inuu soo celiyo mataqaanaa oon kusii mara Nairobi University yaa ardada dhigta oo keliya iyo amina waa jacal banaadir darka macnaheeda maxay tahay curriculum review-ga lagu sugiyo jaamacadda waa curriculum oo istahayba oo haddaad fiirisid كريت أوركا أرضي وطن حتى أرض خبز جوا أرض في سكول تركي جوا كل جوا أرض باقي هذا وقت بيوقع بحب كل جوا محاكينا بس كل كنا كثيري أرض معنا جامعة كثيري سو معناها القف كان مدة هاي صورة مدة هاي هرب هذا سو تشاين هذا جو عكسه وقتنا منا فكر جو خبز جو تركي كذا جو ملتي سنة باور بحب أرض وقاعدين سو واحد يقول جينا إن امتحان إذا كان أرضي واحد كتب بي رياضة جماعة ما بنجي تمام بثام كتير سو حني لا جامعة بنات هرب يسوق بس هذا مفرسنا هاي وحن كلو رجينا مستقبل كلو إن شاء الله وحن كلو كده أنا عصنا جنيرك ما دام جامعة هذا الرؤوس على سجن إن حرف يعني الرؤوس وبيو هرمت ماشي كسي ونو هو حياة هذا لو حنلنا هاي جنيرك وسع ومشاركنا وحين صارينه سمير خير لا شيء هذا صار كده واحد صار يشوف سو وحن جعلنا جنيرك أصير إنه الرؤوس وبيو ومتكلنا وحياة هذا وحاجة ومتقانا مصدر سؤال ومتقانا سؤال شغلنا ولا هلاي أرضنا متقانا كيف يدستان وجامعة مقعد أي كوكس على الإنميشن هنا إن reality أكاديمي شيء ما أنت واحد مرتين everything is okay because هذا كان يجوا أسوق كوري يجوا جامعة يجوا وهذا كلا اللي يجوا كوري هذا كان أوكي أنت يقول فهمه ما كان شيء فاجنا أنا إذا حي كل جودة ملارك شيء كل هذا الشيء كنا شيء كنا وضعنا possible أرض هذا الجنوة سدي اسمه ولا عنا المثل وضد شقي سنة واحد ضد واحد براوي ضد مستقبل له هذا ما سنتي كل يوم ولا نسلام
رجينا إنجنير نيرلاسيو أسيكنا متعانا وحن ورجينا مستقبل جهان مركز سنة وحاول أوجع يا رب because he's my friend really friend okay my friend marka waxaan salaamay gudaha jaamacadda professor cabdirasaaq dalmar waxaan kaloo salaamayaa professor cabdisamed oo kamid ah maasiinta jaamacadda banaadir waxaan kaloo salaamayaa deanka economics waxaan kaloo salaamayaa injineer cabdiraxmaan khayr oo ah madaxa imtixaanaadka dhammaantiin waan salaamayaa waalidiinta waan salaamayaa ardayda waan salaamayaa aad aan kaga mahadcelinayaa xafladda ay samaysaan ka mahadsantihiin xafladdan waxaa ka horeysay waxyaalo tiro badan ee kasoo qabtay marka waadna mahadcelino dadkii sameeyey fadhiistay 16 sano ka hor fikiray ayagoo shaqaysan kara oo dibadda aadi kara oo dana kala samaysan kara 16 sano ka hor fadhiistay sameeyey jaamacad banaadir oo already kasoo qalinjibiyeen boqolaal arday oo suuga iyo injineero iyo arday tarta marka waxay leeyihiin muxsintaas inaan marka ducadeyna oo ku darno aan duceyna halkan aan u socdo kelmadu waa bursinayay because muxsinta waxay leeyihiin shirka muxsinta jilwanta way leegaysan doona journaalka iyo ardada qoreen ayaga u keeni doona wixii sanadkan aan soo qabanay professorka daabin professor fursad wuxuu noo siiyey inaan marka koowaadba jaamacadda aan liid gareyno liid aan liid gareyno fursad fiicanna waa in platform loo siiya ka horeysa inaa waxa qaban kartida marka jaamacadda banaadirna intaan ka ogaanay shaqaaleysiinteeda process waxaa waa tawmiid ku besgaraysa lagu dhisay aqoon ku besgaraysay qof jeclaysi ku besgaray professorka markoo shaqadan markii dee magacaabay professorka wax oo saaxiibtinimo iyo wax oo laga dhexeeyo oo maaragta aniga u xilan aan jirna waxay ahayd aqoon ugu tuhmaayay iyo hogaamin ugu tuhmaayay anigana waxaan markaas isku dayay anoo tiim kaashanahay injineer caraar injineer musa injineer cabdiraxmaan axmed sheekh macalimiinta anoo gaashanahay inaan ku ceeboobin meesha oo meel lagu aamin waxaa waaye inaan kasoo baxdo waxaa qaban kartay ardayda marka waxaan isku daynaa ardayda inaan abaabulno oo association kaa sameyno ardayda marka shaqada badanka dadka qabta ayaga journaalka hadduu jeedno saddex arday cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo samiira qabteen baa waa kuwan cabdullaahi istaag سمير الشاك بلاك سدحنا أرضي ديتي marka waxaa arkaa ardayda markii la howlgeliyo wax badan aan kasoo baxayo oo kuliyadda xitaa howlgeliyo marka ardayda waa mahadcelinaynaa hadhowna kelimad dardaaran ah oo ardayda u talagalay markii aan xoogaa dhammayn karnaan bixin doonaa muasisiinta aan kusoo dhaweynaya professor dalmar kusoo dhaweynaya والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت أكيد تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدين عدينا المعلومات الماضي والوجود الإنجنير وشوف أحسن أن نجد مقادير تلفظ الإنجنير وأنا ما أعرف. أنا أقول أحسن أن نجد الإنجنير تلفظ جاي إنجنير. بدي كان إنجنير مجرى ومشان marka wax weyn waa farxad weyn noo tahay maantay in aan suuqinayno injineer cabdirasaaq cali casir oo aaday waddanka ingiriiska oo PhD ka helay jaamacadda sare oo halkaas ku qoran doono 3 sano 4 sano 5 sano haddii la yiraahdo marka injineerka macalina salaam ilaa ku fududay safarka ingiriiska aniga soo jooga aniga PhD ingiriiska ka sameeyay marka waxaan maleynayaa si iskuuleynana فرحسن على الجماعة. ومتى كان يعني بدأ سجل جلسة مساعدة. وحتى تلوي اللي حسين كانوا هرب سوسي وكذا. وأنا تكتك على وقت الكاس بركاس وقت تونا ملاينا كذا. أنا أسيق على الكاس. أنا وكيل جامعة قدر يسوع معلمين في رفقة ملا إنه بيج دي بصبعين إنجليزي. سنة كهرة هذا وقتين بوها هيدا سنة غير بيج دي كهرة إنجليزي هرمت كهرة كلية البيرة. أستاذ محمد غدر وهذا كل مكان جامعة نوتنغهام أصلا PhD في السنة. وعكسي وري مثلا معلم كلام كثير سنة كلية لغة مثلا PhD هذا أو كذا هذا. سد حدود وحكي هذا PhD لما فهمت برمجة الإسلام. هذا شيء. سداس أو إنشاء إنجنير. درساتنا ما عن واحد لغة هذا PhD جالس.
وقال لي أنا فوق والتفاك طبعا كنت عامل سماعة هنقول أنا ما تكتير ده هنقول أنا لا ليس بينا بدي إن شاء الله إن ما على كتب السياسة أي ترى يا جماعة هذا وهو من العبثات من دراسة المهيئة إنه مهيئة جامعة إنه مهيئة كلية إنه سمعنا عن كده تحرير هذا الوضع وعلينا ولا إرادة ما نجمع دومانين ولا صعب دومانين إنجنير هو halkaas dabaqa ka taagan halkan dabaq lacag wadanka laga qarsan jiray hadda dib waxaa la keenay gudaha meesha hadda deganaa geliyo waxaan maleynayaa hadda waxaa kasoo saaray weeraan 6 ama 7 dhisme oo kiiba 12 dabaq weyn marka waxaan rabnaa injineerada oo jaamacadda banaadir waa ka wada hadal injineerada aan ka gudubno markaa wax dhigisti aan u gudubno inaan sameyno la talin inaan sameyno daraasaad inaan qaadano mashaariic marka insha Allah waxaan sameyn doonaa muddo company ama consultancy hoos yimaada kuliyadda oo howlaha private inuu tagay inuu asal soo hormariyo annagana una soo hormariyo laakiin anaa wakiil idinka oo u tagtagi doona hadda bishaan aakhirkeeda aan ku ballansanahay oo safar waxaan u socday Suudaan laakiin waan soo mari doonaa haddii la yidhaahdo meesha degan agtiisaan deganahay marka waan soo arki doonaa سنقول واشين كنا عراي وكيف جاي جميلة كنا كلية تيسير لو فرموريلا أيام بسيط كنا نظام كتير جامعة واحد تانية الدنيا أيوة وقت مقعدة كلية تايدا وحلا فكاس على أنا كده نقول مركا بسيط ولي ما دورا سنقولي ده صوت دورا دورا كنا صحيح كلية ما مركا أيوة صوت دورا كلية ماذا على أن نسوي جامعة لجوار المعارضة الناس يسوون بيننا إلى التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاكم الله عراي الله عراي سنة جديدة كورس حاكم إلى إنجنير عبد الرحمن حسن محمود حاكم إلى إنجنير محمد أحمد مرسل ريجستر كليدو مرسل waxaan kaloo yeelay injineer Daawud Xaaji Usmaan Ibrahim